muuqaalkan wuxuu noqon doonaa mid halkan ka bilowda oo ku dhamaado meesha aan u soconno insha Allah muuqaal barakaysan oo wax badan aan ka faa'iidaan noqon doona muuqaalkan ujeedka koowaad oo kale waxa waaye bal inaan idin tusno safarkeena iyo adinkuna aad nala safartaan nala socotaan insha Allah taala sidoo kale hadii suura gasho akhyaarta ila socotana aan bal kelimada ka qabto oo iyaguna aan idin la wadaago waxa ay doonayaan in ay la wadaagaan bulshada marka muuqaalka koowaad waa safarkeena magaalada Seattle ilaa iyo aan ka tagno Istanbul ka bacdina waxaan tagi doonaa magaalada Madiina insha Allah taala waxaan hadda joognaa airportkii Seattle Washington biidnillaahi tabaaraka wa taala waxaan u soconaa xaramkii iyo maarta umradii biidnillaahi tabaaraka wa taala waxaan ku dagi doonaa oo ku soo horeyn doonaa magaalada Madiina madiinatu rasuulillaahi ayaanu ku sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayaan ku hormari doonaa biidnillaahi tabaaraka wa taala group baan wadnaa oo masaajidka Abu Bakr Islamic Center of Washington iyo magaalada Seattle guud ahaan maartay dadka kooban taqriiban 60 ku dhow marka waa dhalinyaro waa arday iyo waalidkoodii waxaan ugu talagalayna muhiimaddu waxa weeyaan inay dadkaasi soo bartaan xaramkii ay soo arkaan Makiya Madiina soo arkaan ama kintii barakaysneed ay soo arkaan ay u noqoto cibaado iyo maaragtay vacation labadaba ay u noqoto insha Allah taala waa ilmihii quraanka tartanka ku baasay waa kuwii lambarada hore galay waa kuwii iyo waalidkoodii iyo ilmo kale oo badan oo la socda insha Allah taala marka waad nala socon doontaan biidnillaahi tabaaraka wa taala waxay nala socdaa walaal Xasan Sunni miidiyihiisii Xasan Sunni ayaa groupka kamida insha Allah taala oo miidiya ahaan nala socda isaga ayaa soo gudbin doona wax walba insha Allah wana maasanti waxaan nala socda Cabdulqani Sheikh Cabdulqani ma sha Allah maal Cabdulqani Sheikh Cabdulqani waxa weeye alqaari almuqri biidnillaahi tabaaraka wa taala dhammaystiray ma sha Allah taala Allah barakeeyo hadda wuxuu galay tartankii ma sha Allah taala lambarka saddexaad shaatibi uu ka galay marka umradu socdaa dhalinyaro badan oo quraanka lambaradii galay baa nala wada socda marka marxaban sharaf bayno tahay inaan la socono insha Allah taala diyaaradan galeynaa waxba inoo ma harin abaarka bacd diyaaradu way kacaysaa insha Allah taala hadii Allah idmo marka runtii Ilaahay waa noo fududeeyay You only need your boarding pass. Yes, sir. marka safar salaam insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo safar mumtac ah oo raaxo badan insha Allah adinkana waa la socon doontaan talaabo kasta oo qaadno sida aad u jeedaan diyaaraddu way dhaqaaqday waxyaabaha cajiibka waxa waaye diyaaradan waxa saaran dad badan oo Soomaali ah oo qaarkood u socdo Turkiga anaga dadka damashan ka baxayna tiradeena waa 60 meeyo ku sii dhowdahay ma sha Allah oo de hal community ah oo raba inay wada umraystaan oo horkacayo Dr. Sheikh Ahmed Nur marka waxaan isleeyahay safarkan wuxuu noqon doonaa safar runtii aad iyo aad wax loo kala faa'iido hadda intaan joognay aan ku jirnay diyaaradda aan sugaynay boardingka aan sugaynay dadka aad iyo aad ayay u kala faa'iideysanayeen dad badan oo masaajidkooda tukan jiray oo laakiin kor iska yaqaanay baa mataqaanaa walaalnimo cusub u bilaabatay oo safarku inta badan dadku si fiican isku bartaan dadkaana in muddo isla joogi doonaan muddo 2 toddobaad ku dhawaad ayay hal meel wada deganaan doonaan ay wada adeegan doonaan oo ay wada cibaadeysan doonaan oo ay meelo badan oo taariikhi ah ay wada tagi doonaan marka si fiican isku baran doonaan marka maxabba ka dhalanaysa waxa ugu weyn oo markii laga soo tagay cibaadadaas ku xig waxa waaye dad magaalada isla deganaa oo laga yaabo inay kor iska arki jireen oo xataa markii qaarkood is salaami jireen ayaa walaalnimo u bilaabanaysa marka waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad nala socotaan insha Allah ilaa aan ka tagno magaalada Istanbul waan ku soo laaban doonaa sidoo kale markaan Madiina Munawwara degnana muuqaalkan soo gabagabayn doonaa insha Allah marka nala socdo biidnillah ما شاء الله
waxaan soo gaarnay magaalada Istanbul insha Allah marka hadda kulli diyaaradan ka dhamaanaynaa waxaan tusi doonaa insha Allah taala sida midigteeda ka muuqato waxa ila joogo akhyaar aad looga yaqaan magaalada Cabdisamad Sharaf ila joogo casho soo dhaw ma sha Allah wadowna ilaahay waa nabad keenay alxamdulillah rabbil caalamiin wala transitkii waa ku jirnaa insha Allah elborkeena joognaa hadda saacada ka hor bayna soo degnay alxamdulillah rabbil caalamiin umra maqbuula insha Allah Cabdinaasir ay والله الحمد لله حسنا وان الحمد لله وانا نودجي تركيا هذا نوصي سعنا ان شاء الله هدو الله هذا marka ummadana naga dambayso xarajan umra u socnaa ummadana naga dambayso xarajana inuu ilaahay ayagana kuwa dambe soo baxay inuu ilaahay ka dhigay cid rajaynaysa maartay inuu ilaahay u fududeeyo insha Allah taala anagana Allah noo soo fududeeyo alhamdulillah rabbil alamin we just landed ilaha ma hadda iska leh hadda odayga xasuusni ahaana waa la soconaa ma sha Allah abdeedaan nahay waqti fiican waa qaadanayna insha Allah haddana insha Allah Madiina u sii jeednaa insha Allah dhawaan sheekheena Axmed Nuurna waana la socdaa mar dhow noo soo baxay tutor Sheekh Axmed Nuur aad u maasantaa xasuusni ma sha Allah my brother runtii umradan umrooyinka waxay ugu duwan tahay waxa waaye rag xul ah akhyaar ah wada soconaa oo aad loogu qadariyo magaalada Seattle marka insha Allah kulli waan la socodsiin doonaa ilaa Madiina aan ka tagno muuqaalka halkaas aan ku soo gabagabayn doonaa insha Allah Rahmaan marka la socod wanaagsan masaajidkan ayaa hadda ku tukanay oo airport ku dhex yaala jamaacadii oo dhan waxay rag ahaan hal meel ku tukadeen badankood gabdhihiina sidoo kale hadda marka waxaan jimcinay salaada duhurkii iyo salaada casr ayaan hadda jimcinay oo tukanay marka daal badan naga muuqdo dad badan waxa jiraan diyaaradda ku dhaxso seexanano inta saacadood soo soconay dhafar sano oo aniga aan kamid ahay marka hadaladeena hadii xogaa aad fahmi weydaan hala yaabina marka insha Allah taala hadda waxaan isku day doonaa Sheekh Axmed Nuur oo ah imaamka masjidka Abu Bakar oo jamaacadan hadda umrada soo aaday ee Seattle ka soo baxday odayga oo ah inaan kelimad ka qabto insha Allah taala kadibna wax kasto aan israahdo waa macquul inaan idin la wadaago oo intaan airport-kan joogno indheena ay qabtaan oo soo jeeta ilaa aan ka baxno insha Allah marka muuqaalka saan hore u sheegay waxaan ku soo gabagabayn doonaa magaalada Madiina waxa xigi doona marka muuqaalo kale oo insha Allah muhiim ah ayaa xigi doona oo ku saabsan Madiina iyo ilaa Makka insha Allah marka la socod wanaagsan insha Allah insha Allah taala waa jamaacadii iyo groupkii umrada u socday waxaan joognaa hadda Istanbul Turkiga waxaan u sii soconaa Madiina al-Munawwara biidnillaahi tabaaraka wa taala waxaan rabaa inaan idin sheego wax yar oo ku saabsan magaalada Madiina markaan tagna maxaan samaynaynaa Madiina insha Allah taala hadda waqti habeenan ku beeganay gelinka dambaan tagaynaa marka qofku hotelkan tagaynaa marka ugu horeysa insha Allah taala salaada fajrka waxaan ku tukan doonaa masaajidka rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa faa'iido weyn insha Allah taala halka salaad oo ku tukanna masaajidka rasuulka waxay u dhigantaa 1000 salaadood bay u dhigantaa 1000 biidnillaahi tabaaraka wa taala markaan tagno masaajidka haddii aad tagto xilli aan salaad lagu jirin markaad gasho waxaad tukanaysaa 2 ragcadood oo sunno ah haddii salaad aan tagno fajrkana salaada ayaan la tukanaynaa dadka insha Allah taala haddii xilliga salaad ayna ahayna adigu haddaad iska tagayso 2 ragcadood baa masaajidka lagu tukadaa markaan salaada tukanno insha Allah taala waxaa loo dhaqaaqayaa xagga hore waxaa la soo salaamayaa rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam qabrigii rasuulka la tagayaa assalaamu alayka ayuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa jazaaka Allahu an ummati Muhammadin khayra qaabkaas loo salaamaa laakiin waajib ma aha insha Allah inaad inta aqridaay waajib ma aha assalaamu alayka ayuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu qof walba salaada markuu tukanayo atixiyaadka dhexe waa taqaanaa waa qaabka aad u atixiyaadsataba rasuulka u salaamaysa sallallahu alayhi wa alihi wasallam kadib albaabka markaan tagno wax yaraad ka dhaqaaqaysaa Abu Bakar albaabkiisii baa ku dhagan assalaamu alayka ya Abu Bakar ya khalifata rasuulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam radiyallahu anka wa jazaaka an ummati Muhammadin khayra
isagana qaabkaasaa loo salaamaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala gruubka waan soo gelin doonaa insha allahu tacaala haddana wax yara dhaqaaqaysaa cumar baad u tegaysaa amiiruulmu'miniin cumar radia allaahu canhu wa ardaah isagana waad salaamaysaa assalaamu calayka yaa amiira almu'miniin yaa cumar ibnu alkhadaab waradia allaahu canka wajazaaka can ummati muxammadin khayraa ayaa isagana loo salaamaa insha allahu tacaala kadib albaabkaasaan ka sii baxaynaa waad garan doontaa waa lagu tusi haddii alla idmo halkaas marka insha allahu tacaala waxaa inoogu dhammaan qaybta hore insha allahu tacaala waxaan rabaa marka inaan isweydiinno magaalada aan u sii soconna hadda ma taqaanaa waa madiinatu rasuulillaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam waa magaalo markuu rasuulku sala allahu calayh wasallam u sii socdo uu degdegi jiray uu ordi jiray yacnii siduu u jecel yahay darteed waa magaalo uu ku yaalla buurtii jabalu uxud baa ku taalla oo rasuulku u odhan jiray sala allahu calayhi waaalih wasalam jabalun yuxibbunaa wa nuxibbuh waa buurna jecel annaguna aan jecellahay waa buur baa rasuulka jecel sala allahu calayhi waaalih wasalam isaguna wuu jeclaa iyaduna way jeclayd markuu sii socdo uu magaalada ku soo baxo uu meel ka yimaado safar wuu soo ordi jiray hasha uu saarayn jiray buu xoog u dhaqaajin jiray micnaheedu waa jacayl uu rabo inuu magaalada galo magaaladaasaa adiguna tegi doontaa waa masaajidka waxaad tegi doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala nebiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasallam uu dhisay oo uu ku tukaday ayaa tegi doontaa insha allahu tacaala waa faa'iido weyn oo laga yaabo cimrigaaga dad badan inay weli arag oo aan xajka iyo cumrada toona tegin waa first time oo kugu horraysa insha allahu tacaala waa magaalo maxruuso ah oo la ilaaliyey oo rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam dajaal xitaa ma soo galo dajaal markuu soo baxo magaalada madiina ma geli karo waa laga ilaaliyey waa magaalo uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam dadka munaafiqiinta kuma dhex noolaan karaan qof munaafiqii magaalada madiina kuma noolaan karo iyadaa cayrinaysa wuu ka baxayaa ma joogi karo idan dadka joogaa waa dad ahlu iimaan walidaalika magaalada markaan tagno siday u deggan tahay baad arki doontaan dadka joogaa waa dad deggan waa dad hadal yar waa dad aan qaylinaynin waa dad cibaadaysanaya waa magaalo maa sha allahu tacaala ducada rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam yaa madiino u duceeyey sida uu nebiyullaahi ibraahiim uu maka ugu duceeyey uu rasuulkuna sala allah alay slam madiina isna ugu duceeyey marka ducadaasay qabtaa insha allahu tacaala inta aan joogno insha allahu maalin walba waxaan sharrixi doonnaa waxa laynaga rabo laakiin sidaad kor uga sii ogaato waxyaabaha aan samayn doonno insha allahu tacaala waxaa ka mida inaan masjidu qubaa aan ku soo tukanno waxay u dhiganta adoo gurigaaga joogo hoteelka aan tegi doonno insha allahu xaramka ayuu saaran yahay marka albaabka laga galana waa laguu sheegi doonaa kadib maalinta aan baxayno adigoo weyse qaba subaxii ayaa insha allahu marka la yidhaha waa la baxayaa ood soo weysaysan diyaar adigoo ah ayaan qubo aadaynaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam qofka isagoo weyse qaba intuu qubo yimaado 2 ragcadood ku soo tukada waxay u dhigantaa cumro dhammaystiran labadaa ragcadood baa u dhigantay insha allahu tacaala waxaan soo booqan doonnaa intaan joogno jabal uxud iyo meeshii asxaabu rasuulillaahi dagaalkii uxud uu ka dhacay oo 70ka saxaabi oo xamsa ku jira lagu dilay ayaynu soo booqan doonnaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan soo booqan doonnaa insha allahu tacaala qubuurta baqiic hadday noo suurowdo insha allahu tacaala iyadana waan soo arki doonnaa insha allahu tacaala 10,000 oo saxaabi baa ku duugan halkaa ilaa yowmina haadaana dadka waa lagu sii duugaa magaalada madiine intaad joogto timirta cajwatulmadiina la yidhaahdo waa timir barako badan subax walba isku day intaad joogto inaad 7 xabbo ku qureecato insha allahu tacaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam qofkii 7 xabba ku qureecda sun iyo sixir toona ma taabto sun iyo sixir midna qofka insha allahu tacaala wuu ka badbaadayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo rabaa inaan ku baraarujiyo intaad magaalada madiine joogno turbatulmadiina ciidda magaalada madiina meel kastoo magaalada madiina ka mid ah markaan meelaha aadna qubo oo kale aad ciid yar ka soo hadday nabar hadduu kugu yaallo meelun jidhkaaga ka mid ah haddii bookaaga taalla nabar hadduu kugu yaallo xanuun haddaad qabto rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam
qofka intuu ciidda magaalada Madiina soo qaado oo gacantiisa farta midigta way fartaas oo saa ciidda u saaro marka hore candhuuf buu ku tufayaa ciiddu saarayaa kadibna meesha ku xanuunsan baad saaraysaa kadib waxaad leedahay bismillaah turbatu ardina biriqati bacdina yashfi ghaliilana biidni rabbina waa xadiis saxiix oo Bukhari ku sugan weeyaan يعني بركة إلهي سبحانه وتعالى ولو عافي ماذا إن شاء الله تعالى مركز ذاتك النبرة يا بوجها يا ماشى له أما حنوصل ماشي حنون يسا حصار يسوون ولا فائدة صندونا إن شاء الله تعالى أنت أنجونا مجال هذا فوائد كلبان إن شاء الله يدا يسوع شيء دونا هدي الله إدمو مجال هذا مركز أنت نقف كفائدة سن الحجامة باجرت الحجامة وتوبين ويان رجي الضمر بوالله استوبه marka waxa weeye toobinka rasuulka sheegay sallallahu alayhi wasallam waxa weeye daawo weeye isaguna insha Allah ta'ala ashiyada hadii uu qofku wuxuuna caafimaad jiro toobinka kamida marka insha Allah ta'ala qofkan ogeyn waa la geyn doona gabdhihii hore u tagay way yaqaanaan rag iyo dumar iyo ragba way joogaan iyaga toobinka inoo sameeya biidnillaahi tabaaraka wa ta'ala wiilasha waxa la wixii raga dharka ihraamka waxa inoo keenaya sheekh baa inoo keenay sheekh Xuseen iyo sheekh kale isla jooga ayaa inoo keenaya marka meelaha markaan tagno dharka ihraamka suga waa la idin keenaya ha gadanina meelaha ka gadanina insha Allah ta'ala yaan la idinku dhicin marka waxa la keenay insha Allah ta'ala dhar fiican baa wiilasha la inoo keenay doonaay sida ula socda insha Allah ta'ala biidnillah waxaan rabaa kaliya inaan u dambeynta aan xusuusiyo magaalada aan u sii socono qalbiga sida ugu haya waxay leedahay dareen gaara ما هم مجالوين كي كلو كله ومدينة رسولك صلى الله عليه وسلم مساجد واكير رسولك صلى الله عليه وسلم كدبنا مكة أو كسي أجر بدن يعني يدنا تجدونا إن شاء الله هذا وحين تجينا جيت كي إنه ديار ذكر الراعي لهين إلهي سبحانه وتعالى هي نوفض يسفرك الله سبحانه وتعالى هي نور لما يستره أعماش إلهي سبحانه وتعالى هي نور لما يستره إنه نبض الله ينجيه إنه نبض سالمين غانميننا الله ينجونا بالعليو ماشيني وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى اللهم وسلم على نبي وصحبه أجمعين سؤاله marka aynu xaga tagno qof kasto oo su'aal u baahda su'aalaha brevetka ay gabdhaha u baahan tihiin su'aalaha ay iska guud ahaan qof walba waa iimaan karaa waan uga jawaabaynaa insha Allah ay waa ogahay in su'aalo badan u baahan doontaan insha Allah ta'ala marka waa isla soconnaa ha ka walwalina insha Allah jazakumullahu khayr barakallahu fiik haye ها سونكا iyo dharka ihraamka way isla socdaan waa loo keenayaa wax walba waa la idin keenay dharka soonka iyo dharka labada goob waa la idin keenaa ha qaadanina insha Allah hadda waxaan soo dhamaatay kelimadii Dr. Sheikh Ahmed Nuur oo kula hadlayay jamaacada saa u joodaan gadaasheeda asxaabtii oo dhan hadda waxay galayaan diyaaradii ay galayaan Madiina u socotay ka bixisay magaalada Istanbul marka كل سيدا دريم كرتان دقيقة كدب ساعة كدب هنتجي دونا إن شاء الله تعالى مقالة بركة سنة مدينة المنورة مركا عن مدينة تجنو أيان ساركي دونا إن شاء الله ما شاء الله مقبولة إن شاء الله عبد الله إسماعيل ما شاء الله magaaladii Madiina ayaan hadda ka soo degnay jamaacadii aan wada soconay dhan waan isla helnay dhamaanteen cidna inagama maqna meesha waa faaruq halkaasaan ku sugaynay dadkii hore kuraasta hore fadhiyay halkaasaan fadhiisanay saan u sugno dadka kuraasta dambe fadhiyay marka alxamdulillah waan iselnay dhamaanteen labada ruux oo ugu dambeysay waa hooyadan iyo gabadheeda iyaguna waka aniga gadaal ka socda qof naga dambeeyo ma lahan alxamdulillah marka hadda waxaan tageynaa baggage kaleemkii boorsada ayaan ka qaadanaynaa boorsooyinkii kadibna insha Allah ta'ala basaskii ayaan gelaynaa biidnillah oo magaalada
maxuu ahaa nageyn lahaa biidin illah marka istilaam amtica oo joodaan quraan meesha laga qaato markaan baggage kaleemka tagana isku soo laabanayna insha Allah raxmaan hay Sheikh Ahmed soo dhawow waa nabad nimid magaalada barakeysan ee Madiina muuqaalka noo soo xiri doona insha Allah waxaan isla joognaa hadda Dr. Sheikh Ahmed Nuur Macalin Abdulqaadir imaamka Masjid Abu Bakar Sheikh inoo soo xir barnaamijka qaybta koowaad ee barnaamijkan intaas ku soo xiri doona insha Allah taala oo ku saabsan safarkii dheeraa aan uga soo baxnay magaalada Seattle ee gobolka Washington جزاك الله خير اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أقلنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا نسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها مدينة الرسول الله بان نمد وهي محروسة ومقال إلهي سبحانه وتعالى إلى ليي وهي شيطان إيو دجال تونا أين سوق قلينين إن شاء الله تعالى مركز سفر كيجي الحمد لله وحنكون من نبت قليو الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إن شاء الله تعالى وحنور لمن إن نعماشي بلونه وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم رمان ولا له وأسود دعيني نميلة جوكتان إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته